Singapore intaana ka sheekayn waxaan jeclahay inaan inoo akhriyo maqaal yar oo aan soo narrate gareeyay oo ka sheekeynaya Singapore maxay horumarka ku gaadhay nin professor ah ayaa su'aasha la weydiiyey dabna wuu ka jawaabay si qurux badan oo fiican oo mudkarnimo ayuu uga jawaabay su'aasha marka horta tii oo soo narrate gareey soo koobay baan doonayaa Singapore waxay horumarka ku gaadhay mid un baan xusayaa وبروفيسور كا كستون الصغر كنت في هذا الذي سهدي لا وديبه يكتب جوجل يكتب وحليه هي تدبير اللي حدنكي وضمن أفريقيا يسنغافور أولمس قالوا صوت عتمة سكوي ستاندر رومي هاي سنغافور ميل كرايم كا نصب ماسوكا ما حاجة يعني the third world bank ما أنت نوع ضل باسيبور كوبينو نمبر 1 اللي هو يعني اللي هو استري هي كده marka waxa horumarka keenay ayuu ka sheekeynaya markaas iyo sida lagu gaaray marka hadda su'aasha ay weydiisay iyo golow waan hayaaba filayay bal wixii soo naareeyay ama soo koobay ee doonaya ishada in ka sheego inaan inoo akhriyo waayo inaan horta akhriya ayaa ka qurux badan dabada aan tafaasiil ka bixin si fiican way waxaan doonaya inaan sheego Singapore sidee bay hore ku gaadhay أما قاعدة أما سرته هرمرك سنغافورة أنت بدن وحال الشيء كل سجال بقولية فرتنكي إلا يكون سجال بقولية كنت يدي سنغافورة هذا يقدم بيس سريلانكا تصال سوقات سنغافورة سريلانكا تصال سوقات سفيا دين أول شرع الأنسا دنبيه ده مسق ماسقة وحوها هيك وبصرعي سنغافورة dalka oo dhan waxa ka jiray nolol xumo iyo sila danka kale Sri Lanka markaa waxay ahayd janno la hubo oo dadweynuhu ka hormareen dhinac wal oo nolosha ka mid ah oo waqtiyada kontineeyay Singapore la saasay oo beerka ugu qoraysay Sri Lanka la cid labadii way isku dhigtay safira muddo sanada kadib maanta Singapore waa xubin sharaf leh oo ka mid ah dunida koowaad halka ay Sri Lanka hoos u dacweyni ku yimid oo ay ka mid noqotay kuwa heerka ugu hooseeya maraya adduunka saddexaad waa inuu jiraa buu yidhi wax Singapore si fiican ay u qabatay marka la barbar dhigo farqiga weyn ee u dhaxeeya horumarka labada dal iyadoo oo aanay jirin wax khayraad dabiici ah oo mudan lana xusi karo oo ay Singapore leedahay Singapore wax khayraad oo leedahay ina ma jira dawladda waxay si hagar la'aan ah u daba gashay tubta hore socodka Sri Lankana waxay kaga tagtay dawaqaad iyo niyad ka luntay yani jannadii ka luntay yani wixii hore ka lumayna Sri Lanka way la dawaqsantay nimankana stage-kaas ayay tubtaasay way Professor Kishor Mahboobi waa ninkan sheegay odayga wuxuu ku dhashay kuna barbaaray Singapore asal ahaan Hindiya ka soo jeeday okay isaga background-kiisa markaan ka tagno oo iyo meelo wax ka soo qabtay COVID-19 ilaa 2004 wuxuu ninkaasi ka sheekeeyay sababta ay Singapore sirta horumarka sameeyay wuxuu ka sheekeeyay qaabka sirta ee ay Singapore qaadatay waxaana loo yaqaanaa buu yidhi MPH Singapore waxaa horumarkeega ka qaab sir ah oo ku salaysan saddexda kelmadood ee MPH oo marka la soo gaabiyo loo yiraahdo meritocracy pragmatism iyo honesty saddexdaas horumarka Singapore asal u ah wuxuu yidhi M waxay u taagan tahay meritocracy P-na waxay u taagan tahay pragmatism H-na waxay u taagan tahay daacadnimo ma daacad kadib wuxuu sharaxay sida mabaadi'dan u shaqayso wuxuu sheegay meritocracy in ay ka dhigan tahay in aad doorataan dadka ugu wanaagsan ee dalka maamulka wada qiyaas meritocracy marka qof masar loo dhiibay
in horta marka loo doorto qofka ku habboon research markii dawladda weydiinayso si fiican war waxa ay ku habboon si fiican in horta loo dhiibo meel kasta cidda ku habboon oo iyadoo la eegayo qofka sumcadiisa karaamadiisa sharaftiisa war qofkaas yani la qiimeynayo qiimeyn uu ku yimaado si fiican ku sifoobay wanaagga kadib wuxuu sharaxay sida mabda'iyan u shaqeeyo okay wuxuu intaa ku daray in waxyaabaha dalal badan oo hoos u dhigay gaar ahaan dunida saddexaad ay tahay in anigu jecli wasiiradooda misoo waa sida u qorrayd ee soo translate in wasiiradooda iyo madaxda sare ama wasiir kasta ama madax nin kasta oo madaxii ama ha noqoto sharci dejin wuxuu doonaba yani meesha ku wada qoran yihiin in ay u dhiibaan mansabiyada iyo shaqooyinka horumarka keenaya ku isaga xiga saaxiibkii ehelkii seedigii sodogii abtigii wax la midoo title meel iska soo gala ee aan loogu dhiibin qofka sumcadda iyo karaamada iyo aqoontaan singapore waxay samaysay buuri sidaas wala dunida saddexaad baa saa ku dhaqantay adhoonno inaynu inagu ku dhaqanay kale adaa ka jawaabi oo dadkaan u daynaya inagu weli halkaan baan ku dhaqanaa mise waynu ka gudubnay waa su-aal iyada laftigeeda jawaab u baahano aan waxba ka jawaab maayo laakiin dadkeenu daynaya si fiican singapore waxay samaysay buuri sidaa lidkeeda sidaas ka duwan bay suuqa ku samaysan ama caskiskeeda dalka singapore xilalkooda ugu muhiimsan keliya ma aha golaha wasiirada ee dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha waxaa la siiyaa ilaa iyo hadda dadka ugu wanaagsan ugu aqoonta badan ugu tayada wanaagsan dhan walba la qiimeynta marka la qiimeeyo ugu fiican baa la siiyaa wuxuu soo qaatay oo tusaale waan soo koobayaa waqtigaa nagu dheer wuxuu soo qaatay tiirka labaad buu yidhi oo ah pragmatism waxa weeyaan buu yidhi uu ku sharaxay waxay la mid tahay waa kelmad ingiriisiya waa tii aan ka hadlayay gaariye oo kale aan ku lahaa somaliland waxay halkan kusoo yaro gaadhay in yaroo sida darsatay in yaroo dhaqaala in yaroo dumar waxbaan isku beegeysay hogaamiyihii waktigaasi wuxuu soo qaatay magaciisii waa sheegi doona xagga meelana ku jiray wuxuu soo qaatay uu nin pragmatism yani in system kasta oo adduunyada jira wuxuu ka soo qaatay intii anfacaysa isaga mararka qaarkood waxaa la yidhaha sirnaanka waa shuuci maaha shuuci laakiin intii anfacaysa shuucida ka soo qaatay waa totalitarian baa la yidhahda yani kilisanisba marna lagu sheegi jiray bureaucratic yani wax noocaasa meelaha qaar baa u baahan wadda singapore haddaad dariiqa candhuuf ka tufto mamnuuc bay ahayd waa lagu xidhaa dadka ilaa imika marka system kasta oo jira diin kasta oo jirta wixii isaga marka anfacayay ayuu horta ka soo qaatay wixii buu isku geystay ninkaasi marka maxaa suurtagal ah maxaa aniga ay anfacay war iska ilo dimuqraadiyaddu hadday halka aanay iga anfacayn ma qaadanayo inta iga anfacaysa ka qaadanaya shuuciyaddu halkayga ma anfacaysa laakiin inta dalkayga anfacaysa waa sidaan kuu sheegay waa in yartaa gaariyu ka hadlay sidaasoo kale looga dhaqaysa pragmatismkaas ayaa ina ka mida waa MPH HT buu soo qaatay marka HT wuxuu ku sheegay honest tusaale uu soo qaatay wuxuu yidhi waa daacadnimo buu yidhi wuxuu tilmaamay wuxuu tilmaamay wasiir ku-xigeen ayaa fasax la galay buu yidhi wasiir ku-xigeen ka tirsan wasiiradii prime ministerkaas ayaa fasax la galay niman ganacsata dabadeedna ninkii fasaxii la galay wuxuu soo noqday buu prime ministerku yidhi hala xidho si fiican maxaa lagu xidhay waxaa laygu xidhay buu yidhi wuxuu yidhi waxa lagugu xidhay miyaanad ciddaa iyo hebel iyo aanan fasax u raacin holiday aanan raacin haddaan raacay wuxuu lacagta maadaad heshay soo kaama bixin haa wuxuu haddaanan masarkan iyo waxaan hayn iyuu kaa bixin lahay يعني waxay xasuusisay xadiis qisada rasuulka nin uu u diray sakada oo sakada soo ururiyay dabadna markuu sakadii soo ururiyay rasuulullah sakadiina waa tan intana ayaa laysay oo rasuulku yiri intana aad u maleeday halkan ku dar way wuxuu yiri dilay waxa lagu siiyay hadana anoo ku diray soo ururiyay lagu siiyay lagu siiyay marka wuxuu yiri war ninkii wasiirka ah wuxuu yiri haddaan masarkan haynin
أديكوا المصر كان هم كحين لها والنوع لا لوش والله حريني صفيح ما كان صور سد حذاء غيبوت يعني إن نيو مرة سنغافوري أو مصر لودي من مركز دم واحد قاعدين إنه إسكا إيراني إنه مصر إن يعني وقفوا لبيع والله ده حاسس إنه صفيح هو حنقص وحو الشيء وبروفيسور كاس الشيء وسد حذاء الموضوع كاس حذاء كل موضوع قاطع وحا خبالة وبيك ما دبعانه إنه هو المركز بدي سد حذاء غيبوت كوي عتانا إن يدبوا دع إهل وطاي سؤال شيء والله ما تقول علينا يعني أديك يدبوا وديني حوي dad siyaasadeena maanta eegto dad madaxdeena kuwa joogay kuwii horeeyay cid walba yani in general ma cid gaar ah ma tilmaamayo si fiican saddexdaas markan qodobka ugu dambeeyo honesty-ga iyo meritocracy-ga markan ka hadlo pragmatism-ka in qofka sumcad lagu doorto iyo kartida iyo honesty-ga daacadnimo qofku waxaan daacad inuu yahay oo wixii loo dhiibay loogu imanayo yani ma inaga suurtagal ma tahay haddaan inaga suurtagal ahayn iska dayno horumarkan iyo waxaan hadalka لكن هذا الإنسان السلطة قلتها فورشوا الوحيد الداوينين واي